ciidamada kumandoska danab ee maamulka Puntland ayaa eedeyn culus u jeediyay hogaamiyaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani iyagoo ku eedeeyay in Saciid Cabdullaahi Dani uu deegaanada maamulka Puntland uu ka wado horinta colaadda sukeeyay war saxaafadeed ka soo baxay kumandoska ciidanka danab oo uu hogaaminayo General Jimcaale Jaamac Takar ayaa waxa ay ku yireen waxaan si weyn uga digaynaa wararka la xiriira suurtagalnimada in dagaal ka bilowdo guud ahaan Puntland weerar gardarro ah oo lagu qaado ciidamada BSF-ta hogaamiye Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu horinayaa colaad iyo dagaal sokeeyay waana markii afraad oo dagaal noocan ah ka dhacaan gudaha Puntland ciidamada Puntlandna oo isu adeegsado ma jirto cid Puntland kaga soo duushay dibadda khilaaf ka jira waa mid salka ku haya khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya dadka reer Puntland ah waxaana la isku haynaa waa hogaaminta kalitisnimada iyo boobka qoyska Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale war saxaafadeedka ay waxay ku yireen ciidanka kumandoska danaba waxa uu weerar ku yahay cid kasta oo ka aragti duban wuxuuna rabaa in Puntland ka dhigto meel ay ka shaqeyso kalitisnimada kaliya waxaan soo jeedinaynaa in laga hortago daadinta dhiigga asgar reer Puntland ah iyo colaad laga dhex dhigo qaybaha ciidamada reer Puntland war saxaafadeedka ayaa waxa ay ku soo gabagabeeyeen ciidanka danaba waxay cadeynayaan in mas'uuliyadda bilaabashada dagaal iyo colaad sukeeyay ee ka dhaca Puntland uu mas'uuliyadeeda qaadayo hogaamiye Saciid Cabdullaahi Dani BSF waxay door muhiim ah ka soo qaateen amniga Puntland sanado badan waana ciidamo reer Puntland ah war saxaafadeed ka soo baxay ciidanka kumandoska danaba ee hogaaminayo General Jimcaale Jaamac Takar ayaa waxa uu ku sii aadayaa xilli khilaafka culus ee u dhaxeeya hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo dowladda federaalka Soomaaliya uu maalmihii la soo dhaafay uu cirka isku shareerayay xilli halkaasi laga dareemayo isku dhacyo iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ciidamadii ugu tirada badnaa u geeyay magaalada Kalkacyo xarunta gobolka Mudug halkaas oo ay ka taagan tahay dhaqdhaqaaqyo culus oo ciidanka federaalka iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta maamulkaasi Puntland ciidanka kumandoska danab ee Puntland uu hogaaminayo General Jimcaale Jaamac Takar ayaa dhawaan ku biiray ciidamada militariga Soomaaliya iyagoona dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidankaasi mushaaraad u qortay sidoo kalena ay haatan ay ka howlgalayaan qaybo kamid ah deegaanada maamulkaasi Puntland xilli hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu si weyn u diiday in ciidamo uu hogaaminayo General Jimcaale Jaamac Takar ay ka howlgalaan deegaanadaasi